بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمانيرا anigoo magacayda cabdi muude ibraahim xildhibaanka laga soo doortay lafay waxaan rabaa inaan iisoo gudbiyo waxyaalo ku saabsan jiridan hadda la yidhahdo coronada sidaan uga hortegi lahayn ama haddii kalena iskaga celin lahayn iskaga qaabil lahayn insha allahu allah naga qabto. tan ugu horreyn waxaan rabnaa in dadweynaha ay ogaadaan in gacmaha la iska dhaqa si fiican loo dhaqa saabuun lagu dhaqa ilaa iyo adi 20 second la dhaqa si fiican ilaa macal faraha dhexdooda la dhaqa. tan labaad inaad markaad dhaqdid aad gacmahaada aad ku daarin wejigaada indhahaada sankaada iyo afkaada aad ku daarin. tan saddexaad waxaan rabnaa intaa markaad kasoo gudubta inaad guryahooda la jooga oo socodka badan la joojiye maxaa yeelay bahashan uso tegada iyo dadka badan oo isu imaanaya ayaa laga qaadaa layidhi neefta laga qaadaa layidhi marka candhuufta ama dinkina qofka markay isu soo dhawaadaan ayaa laga qaadaa layidhi. marka waxaan rabnaa dadka inay ku dadaalaan siday gurigooda ku joogi lahaayeen oo kusoo bixin. tan afraad waxaan rabnaa markaad quficaysa ama aad hildhishoonaysa inaad kitaambaar ama tissue lasoo qaata ood ku hindhisato ama ku qufacdo marka iyadana hadaad ay iska tuurtid ood ku ridid biinka meesha wadada loogu talagalay aad ku tuurto. tan shanaad waxaan rabnaa inaad meelaha maaragtay oo gacmaha u badan yihiin ama albaabaha ama maxaasay miiska ama kuraasta la fariisanayo in maaragtay haddii oo aad heli kartid in maaragtay layska buufiyo ama hadii kale layska hagaajiyo. tan kale waxaan rabnaa ninkii maaragtay lagu sheegay jiridan ama la dhahaa ninkan muxuu coronada ku dhacday allah naga qabta inaan maaragtay loo tegin socdaalka laga joojiye oona dadka kale uu ku neefsanin ama uu ku ridin. tan kale waxa ugu daran muhiimka waxaa waaye soomaalida waxay leedahay in yacni oo annaga haddii aan nahay soomaali ama muslimiin aan nahay jiridan noogulama talagelin waa jiri loogu talagalay gaalada waxaas ma jirta jiridan nin kasta ay ku dhici kartaa hadda waxaa ilaa kuwait ilaa sacuudi ilaa meel walba carabta ilaa meesha muslimiinta ay u badi way ku dhacday waa lagu sheegay waa jirtaa marka annaga naga gees naga maaha allah naga qabta insha allahu laakiin waxaan rabnaa dadaal iyo taxadir inaan subina marka jiridan waa jirin dadka kulli ku dhici karta taasna ha la ogaada la dhihin jiri loogu talagalay waa gaalada keliya la dhihin. marka midda kale ugu dambaysa waxaa waaye in dowladda wixii ay tiree hal la qabta oo hala yeela la yiri waa in la raaca waa inaan gacan ku siina waa inaan laga hor imaadin maxaa yeelay dowladda waxay wada waxa waaye wanaagga iyo nadaafadda iyo midnimada waxaase iyo ka hortagga jiridan waa ay dowladdu wadaa marka inay wax alla wixii lasoo sheega ama wixii ama county ama national ka lasoo sheegay in la muqtadiyaan la yiraa oo la raacay la rabaa taasaan heeynaa. marka waxaa insha allahu jirid allah naga qabta idinkana dadaalan u baahannahay dadaal inaad subisiin shayaalkan aan soo sheegnay inaad ku falsiin ama aad camal raacdin la rabaa insha allahu biidnillahi kariim bismillah assalaamu calaykum.